أهلا وسهلا. waxaynu doonaynay inaan haddii ilaahay bilowno silsilad yar oo naqdinta ilxaadka ah iska kooban insha allah. silsiladaas waxaynu kaga hadli doonaa fikirka ilxaadka inaynu ka irfaaloono, aynu fahanno, aynu doodaha ay ku doodayaan soo bandhigno, aynu furfurno markaa insha allah. haddii aan ka bilaabo waxa uu yahay ilxaad ama alakood ama atheist, waa qof odhanaya ma jiro ilaahay, that's atheist. Okay, qof ka saaraya jiritaanka ilaahay oo diidan oo dafirsan, that's atheist. dhalinyar badan oo soomaaliyeed ka mid ah oo hawshan ama fikirkan aaminsan way jiraan, walow ay iyagoon fahansanayn badankoodu ay qaataan. iyagoon fahansanayn waxaan ka wadaa fikirka tacriifka aan ka bixiyey ee odhanaya in ama jiritaanka ilaahay dafirsan, atheismku inuu yahay dafiraad la dafirayo jiritaanka ilaahay. intaas uun kuma eka, yacni qeexitaankaas markaynu qaadano oo aynu fikirkaa dabaqno, waxaa ka dhalanaya silsilad dafiraado badan oo ku koobnaan doonin ilaahay oynu isla arki doono. way ka mid tahay inaad sal iyo meel u weydo moraliska ama akhlaaqiyaadka inay mawduuc yihiin aad meel saari kari weydo. waxaa ka dhalanaya in caqliga iyo bini aadanka aad meel saari kari weydo, bal adigu aad ku dhacdo contradiction. waxaa ka dhalanaya in lagaaga baahdo inaad fasirto jiritaanka nolosha iyo jiritaanka adduunka iyaga oon u baahan abuure jirsiiya. marka kuma eka uun ilaahay baan inkiray oo bas, bal waa inaad jawaab u heshaa silsilado badan oo daba raaci doona arrinkaas, oo kugu riixi doona inaad wax badan oo aad marka horeba firsanayd oo ogsoonayd inaad hadda maanta wixii ka dambeeya aad inkirto. waxaasina ma ahun islaamka oo qura, laakiin xataa ugu dambeyn waa inaad inkirtaa caqligaaga. sidaad ku inkirayso waad ila socon doontaa insha allah. marka intaas waa tacriifka qofka atheiska ah ama mulxidka ama fikirkan ilxaadka aynu ku tacriifinayno. haddii aynu hore uga sii soconno, aynu kusii soconno baabka ilxaadka, qof mulxida maxaa aaminaadiisan la xiriirsan ama waxa uu odhanayaaye u dheer. hadalkan waxa u dheer, ma jirto ruux, ma jirto qaybiyaad, ma jirto waxa aan ka ahayn waxaa maadiga ah maaragtay ama empirical science-ka lagu caddayn karayo ama indhaheennu ay arkayaan. intaas ka baxsan ma jirto, sida ka dhalanaysa ama uu aaminsan yahay qofka atheist-ka. odhaahda maxaa ka dhalanaya? odhaahda waxaa ka dhalanaysa sida soo socota. waxaa ka dhalanaysa in aynu inaguna nahay maado ka mid a shayada maadiga ah ee adduunka korkiisa saaran, in xayawaanada iyo dhagaxaanta iyo waxaan oo dhan ay yihiin rearrangement ama habayno kala duwan oo maatarkii un loo kala habeeyey cafan ayaa ka dhalanaysa. way taas maxaa ka dhalanaysa? taa waxaa ka dhalanaysa haddii inagu aynu shay maadi ah oo maadada ka mid a aynu noqonno, dee qiyam dhan oo aynu inagu aaminsannahay oynu isku xukunno, oynu ku kala soconno, oynu wanaag u aragno, ama manduumadii iyo nidaamkii akhlaaqiyeed oo dhan wuu burburaya, maadaamuuna ahayn nidaamka akhlaaqigii mid maadi ah, mana aha mid empirical science ama science-ka tajriibiga tijaabada ah uu caddayn kara. maaha wax jacaylka, wanaajinta, ixsaanta, cadaaladda, waxyaabahaas ma aha waxyaabo subject u ah ama saynisku uu caddayn karo, mana aha waxyaabo u bandhigan maadi oo ka samaysan shay materiala oo la garanayo, yacni carbon, hydrogen, whatever. halka shayada maadiga ah ugu dambeyn loo jajabin karo matter ama elementiyo loo kala jajabin karo. marka taasi waa baabkii akhlaaqda. so waxaad arkaysaa in markaa akhlaaqdii laftigeedii ay tahay shay meesha ka baxaya, ama moraliskii malihii qofku ma noqon karo akhlaaq wanaagsan ma noqon karo. maaha daruuratan doodaydu siday u bandhigan tahay, laakiin waxaan fasirayaa uun marka aad tiraahdo wax kasta oo jiraaye waa wax daruuratan ah maadi, wax maadada ka baxsan iyo materialkuna ma jiro. markaad idhaahdo dee akhlaaqdii ma aha shay material ma aha. marka akhlaaqda baab gooniyeyn insha alla kaga hadli doona, jas hadda waa bildaamin in waxyaabaha lagu qasbaya qofka mulxidkii inuu inkiro.
haddii inagu aynu maadi noqono waxaa sidoo kale u baahan inuu qofkani inkiro xorriyaddii, waayo shayada maadiga ah ama materialka ah ma aha kuwo xor ah, ma aha, waa kuwo ay xakameeyaan oo xakamaha ay u sidaan waxaa loo yaqaano laws of physics ama xeerasha physigiska. tusaale haddii aan soo qaado laws of physics waxaa ka mid ah unlike charges attract, like charges repel. So kuwa danabkoogu isku mid yahay, shayada danabkoogu isku mid yahay waa kala durkaan, halka shayada danabkoogu kala duwan yahay soo jiitaan. tusaale sodium iyo chlorine aan soo qaato, sodium iyo chlorine markastoo isku nabo, maadaama sodium ay tahay positive charge, chlorine ay tahay negative charge, labaduba ay yihiin maadi ama element, waxaa dhacaysa markastoo isku keeno inay soo jiitaan. isa soo jiidashadoodu waxay nageynaysaa natiijo la yaqaan oo go-an oo leexleexad lahayn, marnana aan isbedeli doonin. inta jeeran isku keenno say doonta ha u tiro badnaatee natiijadu mid unbay ahaanaysaa. natiijadaasi waa salt. so sodium iyo chlorine markastoon isku daro waxa soo baxaya salt. okay, markastoon isku daro hydrogen iyo 2 oxygen waxa soo baxaya wax loo yaqaano water. haddaan isku daro 10 milyan, haddaan isku daro 1 milyan, haddaan isku daro 100 milyan, haddaan isku daro marar aan tiro lahayn, natiijadu waa mid. sidoo kale sodium iyo chlorine haddaan intaan doono isku daro natiijadu waa mid. waxay ku tusisaa taasi in aanay jirin wax xorriyad ah, yacni markaan 10 milyan oo jeer isku daro ma suuroodo marka 11 milyanaad in sodium iyo chlorine ay dhahdaan markaan aynu ka tashano aynu soo saarno wax salt ama milix ka duwan aynu soo saarno. xorriyaddaas male, mana khilaafi karaan xeerasha fisigiska ee u dejisan, maadaama xeerasha fisigisku natiijada ay geynayaan ay tahay mid deterministic ah. waxaan uga dan leeyahay haddii aad tiraahdo bini aadanku waa another material, waa maado kale, waa maatar kale, oo maataradaas lamid ah oo ugu dambeynna loo jajabin karo uun elementyada iyo curiyayaashaas uun ka samaysan. dee curiyayaashaas waynu ognahay meesha ay tagaan, isku darkoogu natiijo la ogyuhu keenaa, kala goyntoodu natiijo la ogyuhu tagaa. wuxoogu waa dariiq cad oo la yaqaano oon dhinacna u khilaafin sharciyada fisigiska. haddii marka inaga bini aadan ah aynu nahay maatar, waxaa ka dhalanaysa inaynaan inagu iyo akhlaaqiyaadkeena iyo dhaqamadeennu ay ugu dambeyn yihiin kuwo ay hagayaan maadaduna waxaa hagaya oo xakamaha u haya sharciyada fisigiska ama laws of physics. ugu dambeyn maxaa dhacaysa? ugu dambeyn waxaa dhacaysa inaynaan xor ahayn. haddii aynaan xor ahayn ma doodi karnaa adiga iyo anigu? because adiguna waxaad mulxid ku tahay, ma aha xorriyad iyo ikhtiyaar kuma tegin, just waa habaynta iyo u hoggaansanka aad u hoggaansantay sharciyada fisigiska iyo xakamaha ay u hayaan elementyada aad ka samaysan tahay ayaa ku geysay natiijada ah inaad mulxid noqoto, anigana muslim inaan noqdo i geeyey. waa doodaada waxaa ka dhalanaysa ayaan ka hadlaya. markaas xorriyad ma yeelan karno haddii aad adigu saxsan tahay, saas darteed ma doodi karno. haddii aynu doodnana doodeedu micno ma leh, maadaamaunan xorriyad aan ku qaato fikirkaaga ayna jirin, adna ayna jirin xorriyad adkaygu ku diido ood kaaga ku qaadato. ugu dambeyn labadeennu waxa aynu samaynaynaa maadaamaynu maatar nahay oo wixii maatar samayn jiray oo ah reaction. maatarku falgal buu sameeya, reaction buu sameeya. sodium iyo chlorine waa aniga tusaale idinku soo qaatay, hydrogen iyo oxygen waa aniga idinku soo qaatay, water. falgalkooga iyo reaction ayayna geyn natiijada ah water ama biyo. saas darteed sharciyada fisigiska reactionaha ka dhasha ama maatarkan reaction buu sameeyaa, ma sameeyo reasoning, ma sameeyo sababayn iyo fikir. sababayntii reasoning waxay u baahan tahay xorriyad, waxayna u baahan tahay inaan fikirkaaga qaadan karo, kaygana ka tegi karo. haddaan xorriyaddaasi jirin ma doodi karo. kusoo gabagabeynayaa dooda qofka mulxidka ah iyo adiga idinka dhexaysa waxa weeyaan, haddaad adigu saxsan tahay mulxidow ma doodi karno, doodi inooma furno, xorriyadi ma jirto, sax iyo qaladna ma jiro. haddii aan anigu saxsanahay oo qura unbaynu wada hadal sii wadi karna. si aan u saxsanaado markaa waxaad ku qasban tahay inaad adigu qirto inaynaan ahayn keliya maatar. haddaad tiraahdo we are just matter, only matter unbaynu nahay haddaad tiraahdo, waxaad soo xidhay baab kaste oo aad fikirkaaga ku difaacan lahayd, aad ugu doodi lahayd, waxaanad xidhay hankaftame baabkii hormuz baad xidhay. so Strait of Hormuz adigaa xidhay markaa ma mari karno, ma doodi karno. waxaynu doodi karnaa oo kuna doodi furan tahay marka aan anigu saxsanahay, markaa unbay xorriyadi jirtaa, markaa unbuu reasoning imanayaan, markaa unbaynu nahay fikrad ka baxsan
maatarka markaa unbuu jiraa wax la idhaahdo sax iyo qalad